wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa waxay sheegtay inay ka taageerayso Somaliland qorshaha ilaalinta xeebaha. Wakaaladda wararka Somaliland ee Solna ayaa soo xigatay qoraal dawladda Taiwan shalay ay ku baahisay Twitter-ka, taasi oo ay ku cadaysay inay Somaliland ka saacidayso ilaalinta ammaanka xeebaha. goobta ay dawladda Taiwan ku shaacisay arrintan ayaa ahayd xaflad maalintii Salaasadii ee toddobaadkan lagu soo bandhigayay markab noociisu ku cusub yahay dalkaasi. Markabkaasi oo ah kuwa dagaalka ee xambaara miinooyinka oo qaybo badan oo ka mid ah la dhammaystiray isla markaana lagu wado inuu si rasmi ah u dhammaystirmo dabayaaqada sanadkan 2020. markabka ay Taiwan soo bandhigtay ayaa dhererkiisa lagu sheegay inuu dhan yahay 41 mitir, waxaanu qaadi doonaa sanad dhan 347 tan, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Taiwan xustay in loogu talagalay inuu ka hortago wixii khatar ku ah dalkooda, laguna qalabeeyay qunbulado loogu talagalay. Wakaaladda wararka Somaliland ayaa sheegtay in istaageeridani ay ka dhalatay iskaashiga iyo wax wada qabsiga bay yiraahdeen ay yeesheen Jamhuuriyadda Somaliland iyo Taiwan, iyadoo sida qoraalka wakaaladda wararka Somaliland lagu sheegay inay labada dal isdhaafsadeen laba safaaradood isla markaana iska kaashan doonaan mashaariic la xiriidha ganacsiga, beeraha iyo kalluumaysiga. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka Saab. Payc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo accountkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba la soo deg abka Payc.